بسم الله الرحمن الرحيم. cashirkan waa cashirka shanaad ee ka tirsan ms windows microsoft windows 10. cashirkan asagana waxaanu ku baran doonaa qaybta lahayo recycle bin. marka cashiradii hore haddii aan xasuusino waxaa cashirka u dambeeyay waxaan qaadanay sida galka amba folderka loo create gareeyo, loo koobiyeeyo, magaca laga bedelo iyo sida loo tiro. marka cashirkan cashirka horeeto related leeyahay markii uu tirmo kaleeta, markii uu tirmo yacni wax iska tirtid intay gelayaan, marka meeshay gelayaan waxaa lahaa recycle binka. marka recycle binka marka wixii la tiro ayaa galo marka waxaa mb except usb flash ms dos iyo floppy. marka intaan meesha ku xusan markii laga reebo, macnaha intaan wixii laga tiro recycle binka ma galan, laakiin wixii computer gudihiisa ka tirtid recycle binkay gelayaan. marka recycle binka waan arki doonaa. saa hor u sheegnaba recycle binka waa ka recycle binka waa kana inta noo soo dhig nuucan u yaalaa. sidaa darteed marka kan markaan ku dhifano waxyaabo badan oo tiray hore u tiray ku jiro. marka laakiin haddaa xasuusatid waxaan gareynay somseg iyo xasan iyo magacyo noocaas aan gareynaa tirnay. hadda mar kaleeta ku celino folder cusub sameynaa, right click new folder. okay, waxaa u bixinaa tijaabo. tijaabo u bixinaa folderkaas. marka kan aan rabnaa marka inaan tirno. okay, sida loo tirayna waa u sheegnay. right click waa delete, right click delete aa leedahay uu ka baxa meeshan. marka recycle binka u gelaa. marka recycle binka waa inaan ka hubinaa. marka recycle binka ka hubinaa. recycle binka double click ku dheh. double click marka ku dhahdid waxaan tirada badan leh horaa loo delete, laakiin axmed waa kana, cali waa kana, waxyaabaa la tiray. si aan ugu wareerin recycle binka naftirkiisa, recycle binka naftirkiisa iska faaruji. mar kaleeto waxaa abuureynaa folder. okay, waxaa u bixiyeynaa tijaabo. okay, folderka marka tijaabo lahaayo waa tiraynaa, right click delete. okay, waxaa la rabaa marka inuu ii galo recycle binka. recycle binka fur. marka recycle binka markaa furta fiiri tijaabo ka fiiri oo ku jiraa. okay, mar kaleeto folder kaleeto soo create garay new. macnaha folder keligiis maahin, folder keligiis maahin, waxyaaba badan sida pdf failkan oo kaleeta aad tiraa. right click delete خلاص waa tira. okay, marka folderkan kaleeto oo faarax ku qoran yahay tiraa, right click delete. marka saddexdan xabo recycle binka inay galaan rabaa. marka recycle binka fur, saddexda xabo waa kuwana. okay, marka recycle binka waa kaas, wax kasta oo tiro a galo, markhaatina waa ka tiin. marka recycle binka marka wuxuu leeyahay marka restore in lagu sameeyo. restore waxaa waaye wixii kaa tirmaa la rabaa inaad soo ceshato. hadda saddex xabo sooma tirin, saddexdii xaba rabaa marka inaad soo celiyo. recycle binka unaqa mar kaleeto. okay, tijaaba rabaa inaad soo celiyo. marka waad keli ku dheh heelaadkaas noocaasa markuu fuulo kadib right click ku kor dheh restore dheh uu naqaa. okay, failkaas kaleeta right click restore, click ku sii markuwaad kadib right click dheh restore. saddexdii xaba fiiri marka kiina waa kana uu soo naqday. faaraxna waa kana, failkeyni waa kana, wixii dhan way iisoo wada naqdeen. marka hadda empty waaye. marka
wixii deleede marka waa tira marka tirtid yani muxuu faa'iido leeyahay marka cashirkan muxuu faa'iido leeyahay by mistake wax iskaga tirtay si ku soo ceshaysaa waa ka meesha u socon waa kaasa si qalada wax kaga tirmeen si qalada marka wax kaga tirmeen inaad soo ceshataa rata recycle bin ama wax kasta ee tirmaal ay galayaan markay galaan si u soo ceshaysaa saas ku soo ceshaysaa okay marka recycle bin inta soo kala asagana ku dheeraayno recycle bin gudihiisa naftigiisa waxa ka sii tiri kartaa waxa kale tama recycle bin ka fur wax ma ku jira hadda kuma jiraan okay wax soo tir faarax kala tir delete recycle bin ka fur faarax waa ka ku jira okay marka faarax hadana sii tir marka leeto asaga right click ku restore meesha ka dhaysa delete leeyahay very easy way marka click right click la ku wareerin kadib wax kasta oo by physical oo arkaysa restore daartu waa ka delete daartu waa ka kada daartu waa ka delete recycle bin ka fiiri calaamadan oo muhiimka recycle bin ka mar hadii laga tiro waxay u baxayaan si permanent ah hadda waxba ka soo tirtay mugtay marka soo waxba delete gareysay marka delete recycle bin ka galeen marka temporary delete oo ay kaas laakiin hadeertan waa permanent delete way mar dama ma arkaysid sida darteed wax recycle bin ka waxa ka tirisid waa inaa careful waa inaa ka taxadirtaa marka mar labaad ma ku soo naqayaan faarax galkan anaga empty way just example ay ku tusiyeen marabna anaga muhiimad nooma ah yes marka lama arkay faarax waa ku day okay وكاسان انت سوق سابسن yahay recycle binka muhiimadiis waxa way waxa laga tiraa galo si uu soo ceshaysa ama sa uu sii daleedaysa waxaan uu sii baahnayn خلاص micrometer sidaan uu sheegnay waxa way waxay ka qowan tahay qaybo kala duwan sida local C local D flow BCD flash marka micrometer maxay tahay marka screen ka tag micrometer waxaan ugu dhigmaan dhahnay this BC inta noo keena sagana soo aragno this BC ana artid micrometer ugu dhigma marka sida darteed marka double click ku sii oo noo soo baxay marka noo soo baxay waxa la micrometer kana la horta wuxuu ku kooban yahay local disk C local disk D local D waxaan adag create gareysan karo laakiin waxa la lahaa disk marka tusaale marka flash markii la geliyo laptopka flash marka gelisid ama systemka marka gelisid meesha uu kaaga soo baxaya waxa la dhahaa local disk aniyada tusaale waxaan sameynaa flashan qabaha waxaan geliyaa laptopka geliyaa intoo ka soo muuqaa meeshan ka soo muuqaa laano hada waxa way localada akhri waxay ku soo qaab alphabetic C D E F mayno F ma xaq wuxuu G marka local kaleeto diski kaleeto oo G la inuu imaado raba markii aan geliyo bin darefka hada geliyay okay waxa yar sug marka waka foreign waka A B C D F okay G وكنا يعني DVD عنجلد أصلاً أنت كسو مقيسة مركا H وكنا بين طرف كجلي وكنا مركا H الله مركا واحد جليسيد كمية كا عنجلد مركا جليسيد أمبا فلاش مركا جليسيد ماشوا كسو مقاية وهاي ما يكون متر كوا وكبحية أصلاً شو اسكو بدلا فيري وكبحي مركا عنجلدي فلاش جليسيد ماشو كا سو موقاي waxa la meeshan markaas waxa rabta ka fiirsaysa micrometer noocaas waaye micrometer kan local si local D marka waxa leedahay back iyo forward ay leedahay back iyo forward waxa waaye tusaale waxaan kaliya kan ku siiyay kaliya marka ku siiyay كمرك أب أرو دون أرو لذا إذا أب أرو دون أرو عملها ورقمه مرك ما يكون ميتر إنك نقدر مرك ربو وكا باك إنك صون مرك ربنا فورورد باك
marka falaarahan adi falaarahan ahaa back forward waa kana back waatana forwardna waatana hadda forwardaa joogaa may computerta ku noqde back inaan ka dhahna waa kaasa marka hadda uu active yahay back aan leeyahay marka backii forwardkaas ayana waa kaasa marka kuwan waa just some kind of theory camal waaye oo may computer maxaa lahaa recycle bin maxaa lahaa cashirkaana arabnaa marka oo very important ah inaan markaas si fiican ugu faano theorygiisa iyo waxa uu yahay properties of items marka waxa waaye fahmidda tayada uu shay uu leeyahay horta yani shay propertieska waxbaa soo iibsatay wax markaa soo iibsatay waxaa rabtaa marka tayadiis qualitygiisa inaa ogaataa rabtaa marka sidee marka ku ogaysaa ku baaraysaa marka anaga shayga hadda soo iibsanay maadaama computer barahun anaga yani mobilena ma soo iibsan yaa wax qalab kaleetana sooma iibsan sariir joodana ma soo iibsan waxaan soo iibsanay computer tusaale marka computerka waxaa rabtaa marka qualitygiisa inaa ogaatid waxa uu yahay amba tusaale cashada ugu dambeeya oo kaleeta tala waxaa kusii doonaa nooca computer kugu haboon aad soo iibsiisid waxa uu yahay marka waxba pointiya kuu qoraa sidee marka ku ogaahaysaa marka kaa rabtay oo kugu haboonaya inuu yahay in kaleeto marka propertieskiisa la ogaadaa marka wadiiqooyin loo maraayo marka wadiiqooyin kala duwanaa loo maraa marka kan ugu dambeeya oo kaleeta click start menu dheh click kadib run ku dhifo kadib waxaa tabagaraysaa DIAG kadib okay ku dheh marka okay ku tiraado waxa ku soo baxaya marka information marka oo computerka uu lahay waxyaabaha meesha ka ogaahaysid okay practicadan aan sameynaa waxaa lagu dhaha first click start menu run maadaama banaanka ay aalin noo fudud searchigana noo fudud markastaba searchigan isticmaalhay okay waxaan qoraynaa marka run run way noo soo baxday waa taasaa marka click kusii run click markaa ku siisid meeshaan open ay ku qoran tahay meeshaas waxaa ku type garaysaa DXDIAG kadibna waxaa leedahay okay yes dheh okay waa ka start menu run DXDIAG intaas xafid DXDIAG kadibna okay ku dheh okay markaa dhaadid waxaa kuusoo muuqa doono hadeertan displaygan windowgana kuusoo muuqayo windowgana marka waxaa ku qoran informationka oo laptopka amba computerka aad soo iibsatay uu yahay tusaale operating system hore in kuu sheegay waxaa ku jiraan dhahnay anaga waxaan baraynaa dhahnay operating system oo la dhahay window 10 aqrinta operating system window 10 okay waa 64 page informationkiisa ka mid tahay luuqadda ku asaan garaysan waa english system manufacturerka companyga soo saaray waxa waaye Lenovo marka processorkiisa waxa waaye i3 meeshaas fiiri core i3 waaye memorygiisa waxa waaye 16384 MB RAM oo u dhigmo 16 GB ramkiisu 16 GB waa aad u badan yahay maadaama multiple operating system ku ran gareeyo uu badan yahay marka informationkan marka qaatid informationka marka akhrisid computerkan waxa ugu muhiimsan window ku jira wuxuu yahay window 10 shirkadda soo saarto Lenovo laptopkan processorkiisu waa imisa core i3 waaye memorygiisana waa imisa waxa waaye 16 GB marka informationkana ka qaadaysa marka waana muhiim aad iyo aad u muhiim ah marka rabtid suuqa marka tagtid laptop inaad soo iibsato marka rabtid koo birim wadadana maraysa yani wax ku qoran xogka ku qoran laptop noocan rabaa hadiskiis waa inta saada memorygiis waa inta saada processorkiis waa inta saada window ku jiro waa inta noocaas naqada companygaas noocaas ka raba informationka marka dhiibtid waa kana waa lagu soo diyaariyay waxa sheegto dhan laptopki waa kana hadii uu sidee ku ogaaysaa marka inay true tahay inay false tahay okay wadiiqadaas ku ogaaysaa wadadana maraysa marka la tada ku celiyo start menu dheh searchiga noogu dhifo marka run noo qor run markaa qortid
meeshan dxdiag ku qor kadib okay dheh. Okay, waxyar sug waa kaa kusoo baxay display information meeshan kaaga muuqaa. waxaan rajeynaa inaad fahantay. berin laptop markaa soo gadaysid meeshaasaa ka jeegaray doontid. maanta wixii ka dambeeyana ma u baahnid inaad qof wadatid oo ku walbagareeyo. meeshaasaa kala soceysaa wadiiqadan aad u yar intaas le xafid. waana mahadsantihiin. waa cashirka qaybta xigto waan rajeynaa aan ku arki doono. hana hilmaamin subscribe-ka iyo gambaleelka inaad furtid si casharadaas iskugu xigaan si kuwan si ay kugu soo dhacan. aad baa umahadsan tahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.